Escuduneba aragutaga lagutaga escuduneba aragutaga escuduneba aragutaga lagutaga escuduneba aragutaga aan wada hadalna waan heshiina bay Soomaalidu tiraahdo halkaasaan anagu dhignay arrinka waxaan idin rajaynaynaa wax taariikhi ah inaa ka soo baxdo wada hadalladiinaas iyo joogtayn aan joogtayno inta aan ma garanaysaa yoolka dadka wax u talinaya dal u talinaya ummad u talinaya wanaagga kolkay iyagu isla helaan wixii kaloo dhawaa waxa weeyaan details baa la yidhaahdaayo wax macno ay leedahay ma jiro laakiin niyad samida iyo walaalnimada unbaa yaa laga bilaabayaa oo laga dhaqaaqayaa qaraarka qaadataan waxa aad ma garanaysaa ka wada shaqaysaan waa inay noqdaan wax ummadahayna wax u tara escuduneba aragutaga lagutaga escuduneba aragutaga escuduneba aragutaga lagutaga escuduneba aragutaga shirkani insha Allah waxaan rajaynayaa inuu noogu dhamaado guul oo aan uga farxino shacabkeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maxaa yeelay waxaan ka hadlaynaa sidii loo walaaloobi lahaa wax loo wada qabsan lahaa si dhab ah loo wada hadli lahaa shirkaana runtii qabanqaabadiisa dhawaan ma ahayn sanadkii la soo dhaafay yaan kala hadlay madaxweynaha walaalkeen Ismaaciil Margeelle waxay ahayd inuu qabsoomo Oktoobartii la soo dhaafay oo isagu ka shaqeeyay laakiin ma suroobin kol hadday samuuran buurkana maxkagan madow soo dhex galo horay uma marto murugtaye ogo hadalkana runta haddii aan laga sheegin murug buu galaa run hala isu sheego wixii la tabanaya si adag laga wada hadlo wixii la wada goostay ee lagu heshiiyana run ha laga dhigo hala rumeeyo taas baa la naga soo soconaa xagga yaga waxaan halkan lamid run wixii dhibaato aan u aragnay aan sheegno wixii dan inoo wada ma hadanta Soomaaliya qodas maanta Soomaaliya maxaa u dana qodobka u dana een ka fursad weynina waan la nimid walaalayna waxaan u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa soo kale waxaan diyaarnahay inaan dhageysano ra'yiga naga duwan kayga ka fog inaan dhageysano oo dulqaadkeeda yeelo oo rogrogdawaan u nim idinkana saayis laga ka doonaynaa shalay arrintu waxay ahayd madaxweynayaashii waa shiray oo hadlay oo dhageysanay mas'uuliyadii waan soo wareejin guddiga wasaaradda loo soo wareejiyay anaa tilmaantayda waan nidhi halka war hawla wada heshiiyo waa wax la isla afkarto waa dhamayn walaalkay Ismaaciil Margeelle waa ka dhabeeyay inaan ka wada hadalno 30 sano soo socda xagee tageynaa 30 sano waa wada joognay 30 sano waa kala maqreen kan soo socda caruurteena maxaan uga tagnaa dhaxal iyo mustaqbal weeye waxa guddigan loo sameeyay marka la wada hadlo oo la wada fariisto oo la heshiiyo go'aan la qaato waxa la rabaa go'aankaas iyo heshiiskaas cidii fulin lahayd waa idinka ummadda Soomaaliyeedna meel kasta joogto ishayna ku haysaa
meeshaad u kaxaysaan haddaad tihiin guddiga farsamada haddaad barwaaqo iyo nabad u kaxaysaan iyo haddaad meel kale u kaxaysaanba annagu waa idin siina kalsoonideenna dadkii ugu aqoonta badnaa baad tihiin Soomaaliya ama meel kasta Soomaaliya joogto dadkii ugu aqoonta badnaa baad tihiin waxaa loo baahan yahay inaad mustaqbalkeena hadda aanin waqti hadda joogaan idinka fekerin aad ka fekertaan 30 sano soo socda caalamka xaggee ka gelinaa ururada bulshadayadan isba haysanayna ururada bulshadayadan